team 27 waxay ka kooban yihiin Soomaaliya oo dhan qabiil kasta ayaa ku jira ninkan waa reer Muqdisho asal ahaan waa nin reer marka ah oo la yaqaano waa nin maanta kursiga uu ku fadhiyo ay sabab u yihiin ururka al-shabaab waa nin saaxiibkiisa uu xabad ku dhuftay ninka la dhigi jiray Elkacse ee reer Muqdisho qaar badan oo kamid ah laayay markii dambena la toogtay dad xasuusato ayaa ninkan sabab u noqday inuu kursigan ku fariisto munaasabada kadib agaasimaha guud ee madaxtooyada qaranka mudane Cabdixakiim Maxamed Yuusuf ayaa guddoonsiiyay Asad Xaajiyo bilada adkaysiga Soomaaliyeed taas oo ah abaalmarin la siinayo muwaadiniinta muujiyay geesinimo dulqaad iyo adeeg bulsho oo qiimo leh dabcan Asad Xaajiyo hadii Ilaahay laga baqayo waxa uu u qalmaa intan in ka badan sawirkan aad u jeedaan waa sawir farxad leh oo ka yimaaday magaalada caasimadda ah ee Muqdisho waa Asad Xaajiyo ninka aad u jeedaan madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa qaabilay runtii madaxweynaha Soomaaliya wuxuu qaabilay nin Soomaali ah oo ah ninka ugu saameynta badan Soomaalida ku jirta social media gaar ahaan YouTuberiska Asad Xaajiyo waxa uu u yahay role model Asad Xaajiyo dad ka badan 2 milyan oo ruux ayaa ku xiran boggiisa dhinaca YouTube-ka Asad Xaajiyo wuxuu shaqo abuur u sameeyay dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed oo Malaysia jooga oo qaarkood wax barta qaar waxbarashadii dhameeyay oo shaqo la'aan ahaa waxyaabaha cajiibka leh ee Asad Xaajiyo uu dabcan caanka ku yahay waxa kamid ah dadka ku hareereysan ma aha kuwa hooyadii iyo aabihii dhaleen oo kaliya wuxuu sameeyay koox loogu magac daray kooxda 27 ama team 27 team 27 waxay ka kooban yihiin Soomaaliya oo dhan qabiil kasta ayaa ku jira ninkan waa reer Muqdisho asal ahaan waa nin reer marka ah oo la yaqaano waa nin maanta kursiga uu ku fadhiyo ay sabab u yihiin ururka al-shabaab waa nin saaxiibkiisa uu xabad ku dhuftay ninka la dhigi jiray Elkacse ee reer Muqdisho qaar badan oo kamid ah laayay markii dambena la toogtay dad xasuusato ayaa ninkan sabab u noqday inuu kursigan ku fariisto waliba meed ahaan ayaa looga tagay maalinka in la dhameystiro ayaa qorshuhu u ahaa Asad Xaajiyo dad badan ayaa aad ugu farxay in madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud uu qaabilo war lagu daabacay bogga internetka ee Villa Soomaaliya ayaana daawadayaal waxa lagu yiri sida tan madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo kulan dhiirigelin ah la qaatay hal abuure Asad Xaajiyo Muqdisho Febraayo 5teeda 2025 madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo kulan soo dhaweyn ah ugu fidiyay madaxtooyada qaranka hal abuure Asad Xaajiyo ayaa ku dhiirigeliyay go'aanka geesinimada leh ee uu ku wajahay dhibaatada ay u geysteen argagixisada madaxweynaha ayaa sheegay in Asad Xaajiyo uu tusaale u yahay muwaadiniinta Soomaaliyeed ee adkaysiga iyo geesinimada kaga gudbay dhibaatooyinka iyo waxyeelada ay argagixisada ugu geysteen dadka Soomaaliyeed Asad kuma niyad jabin weerarkii naxariis darada ahaa ee argagixisada al-shabaab ay dhowr iyo 10 sano kahor isku dayeen inay ku dilaan kaas oo keenay inuu naafo noqdo inkastoo uu la kulmay dhaawac halis ah oo naafo ka dhigay haddana maanta waxa uu dalkiisa ku soo laabtay isagoo xambaarsan himilo iyo hiigsi ku aadan horumarka dalkiisa iyo dadkiisa munaasabada kadib agaasimaha guud ee madaxtooyada qaranka mudane Cabdixakiim Maxamed Yuusuf ayaa guddoonsiiyay Asad Xaajiyo bilada adkaysiga Soomaaliyeed taas oo ah abaalmarin la siinayo muwaadiniinta muujiyay geesinimo dulqaad iyo adeeg bulsho oo qiimo leh dabcan Asad Xaajiyo hadii Ilaahay laga baqayo waxa uu u qalmaa intan in ka badan intaana waa waxaan sugeynay dawladda Soomaaliyeedna inay garab istaagto Asad oo waxa laga rabaa dhalinyarada isaga la midka ah ee fursadda Asad uu helay aan helin ee maanta naafada ee dalka jooga in dawladda ay barnaamijyo u abuurto Asad inaad siisaan abaalmarin oo kaliya kuma filna sheekada madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud madaxweyne waxa aan rabnaa in dhalinyarada naafada ah ee dagaalada ku naafoobay ee maanta gurigooda lagu dhex ilaabay waxbarasho aan helin caafimaad aan helin
in dowladda barnaamijyo ay u samayso. waxaa la heli karaa wiilal iyo gabdho badan oo naafa ah oo talent leh, hal abuur leh, laakiin waqtiga uu ciilayo. Asad maanta isagoo naafa ayuu halkan soo gaaray. imise kale oo naafa ah oo Asad la mid ah ayaan heli karnaa? waa su'aalaha isweydiinta mudan. runtii dad badan oo Soomaaliyeed ayaa iskugu soo baxay Asad soo dhaweyntiisa. Asad waxyaabo cajiib kale waxaa ka mid ah isagoo muuqaal iska duubayo gaari saaran ayaa waxaa soo agmaray gaari ay saaran yihiin ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. Asad wuu naxay, gaariguu ku laabtay. muuqaalkaas Facebook inaad ku aragtaa laga yaabaa. daawadayaal markii uu naxay waxay yiraahdeen raaxayso, waqtigaaga qaado, dalkaaga aad joogtaa. magaalada Muqdisho Asad wuxuu yimaaday Muqdisho nafistay, Muqdisho argixisay meel laga saaray, Muqdisho qaraxyadii biyaha camal ahaa ee toddobaad walba dhacayay Ilaahay subxaanahu wa ta'aala dadkeeda uu ka koryeelay oo markaasi Ilaahay uu ka dulqaaday. daawadayaal waxa Muqdisho ay noqotay magaalo habeen iyo maalin meesha aad doonto aad mari karto. juhdiga lagu bixiyay, dhiig badan loo daadiyay, mas'uuliyiin badan u taagan. reer Muqdisho marka qof Asad la mid ah markuu imaanayo sidan ay u mashxaradaa. reer Muqdisho waa kuwa gacanta ku haya Ilaahay ka sukow social media. TikTok reer Muqdisho ayaa lagala tashtaa. haddii aad gasho dadka ka qoslinaya, dadka wax fiican sheegaya, dadka dhibaatada sameynaya, ciyaalka xaafadda ah waa reer Muqdisho. dadka marka dhibaato ay dhacdo intay soo istaagaan, dadka isku mideynaya oo wadajirka bulshada ka shaqeynaya waa reer Muqdisho. YouTube waa sidoo kale, Facebook waa sidoo kale. dadka siyaasadda ay waxaan soo qora, arrimaha bulshada ka hadla, siyaasadda ka hadla waxay u badan yihiin reer Muqdisho. Asad Xaajiyow fariin ayuu kulay ka qaadayaa madaxweynaha. fariintaasi oo la rabo in uu u geeyo reer Malaysia, inuu u geeyo dhammaan dhalinyarada Soomaaliyeed guryahooda uu ugu geeyo, isagoo muuqaalo ka sameyn doona arrintan. daawadayaal Asad Xaajiyow waxaa la jira sidaad aragtaan Cabdullaahi Xaajiyow oo ah walaalkii. Cabdullaahi Xaajiyow waa walaalkii Asad Xaajiyow ayuu la dhashay ninkan. daawadayaal Cabdullaahi Xaajiyow isaga dhabarkiisa ku qaaday maalinkii Asad Xaajiyow magaalada Muqdisho isagoo dhaawac ah oo ambulance lagu sido diyaarad laga saaray. wuu ilmeeyay maalinkii uu soo degay. haddii aad xusuusato, walaalkiina maanta wuxuu soo celiyay oo walaalkii dalka uu ku soo celiyay. Asad Xaajiyow oo xitaa sida loogu soo baxay madaxweyne Soomaaliyeed aan loogu soo bixin, wasiir Soomaaliyeed aan loogu soo bixin, madaxweyne maamul goboleed aan loogu soo bixin, xildhibaan xataa beeshiisa isugu yeertay aan loogu soo bixin. taas oo iyaduna ku dareensiinaysa in Asad meel fiican uu joogo. Asadow Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ayaan caafimaad ku weydiinaynaa. dadka Soomaaliyeed, madaxda Soomaaliyeed, shacabka guud ahaanba waa lagu jecel yahay. halka aad ka wada barnaamijyo wadaniga ka hadlayna inaad ku soo darto waan rajaynaynaa. diintana ka hadlay inaad ku soo darto, dadka aad gaarsiiso fariinaha muhiimka ah ee diinta ku saabsan. muuqaalkan halkan ayaan ku soo gabagabeynayaa. haddii uu ku cajab geliyay muuqaalkan, waxaan filayaa inaad sii share gareyn doonto, qaybta commentigana ugu duceeyay oo ku taageer Asad Xaajiyow. sidoo kale waxaan filayaa daawadayaal in hadduu eeba ka raali noqdo Asad uu barnaamijyo fiican u sameyn doono reer Muqdisho, dhalinyaradooda gaar ahaan kuwa isaga la midka naafada ah uu garab istaagi doono. muuqaalkan kan xiga intaan dib ugu kulmi doono, nabadgelyo.